Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada asxaabta page-kayga. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo 5 arrimood ama 5 talo ayaa la dhihi karaa oo aan u soo jeedin lahaa carruurta aad u daawato shaashadaha. Muuqaalkii ka horeeyay wuxuu la xiriiraa mowduuca maanta. Waxaan u gudagalaynaa 5 talo ama 5 arrimo aad liiga soo codsaday oo ku aadan carruurteyda shaashada ay daawadaan. Maxaan sameeyaa? Waa talooyinka aad liiga soo codsado aan ugu talagalay muuqaalkan inaa ugu bogatiin. Daawasho wacan. Mar kale oo aniga waa Dr. Yaxya ugu barateen muuqaalada ku saabsan indhaha iyo aragga. Waxaan u gudagalaynaa 5 talooyin oo ku aadan habka indha xanuunka aad kaga ilaalin lahayd carruurtaada. Midda koowaad waxay tahay canugaaga meesha uu ku daawanayo ama environment uu ku daawanayo ina aad ugu taxadartid oo aan ula jeedo haddii uu computer oo kale ama online ama cashir ka baranayo in daaqad ayna hortiisa ay ku olin sidoo kale inay gadaashiisa ku olin taas oo sababi karto iftiinka marka uu ku dhaco computer kale ama iPad ama haysta mobile kale haddii uu cashir ka baranayo kale markii ay ku dhacdo inay indha xanuun ay keeni karto. Marka aan noqoto meel iftiin si toos ah aan ugu soo dhaceyn ama si kala hadii aan u dhigo daaqad in ka hore hortiisa ahaanin gadaashiisana ay ahaanin. Taas waa talada koowaad oo aad ugu fiirsan kartid canugaaga meesha uu badanaa uu ku isticmaalayo aaladaha shaashada. Midda labaad waxay tahay in maalintii 2 saacadood aad u ogolaato inuu banaanka uu ku ciyaaro. Arrintan waa arrin aad u muhiim ah. Marka waa muhiim 2 saacadood ama 3 saacadood intii aad awoodid inaad u ogolaato inuu banaanka ku ciyaaro oo taas uu xataa uu kaga hilmaami karo inuu shaashadaha uu isticmaalayo kaga fogaado. Habka saddexaad aan u soo jeedin lahaa carruurta waxay tahay jimicsi khaas ah oo haddii aad waalid tahayna aad bartid carruurtaada in ay sameeyaan. Sidoo kale haddii aad canug tahay habkan ay isla sameeynaa jimicsigan oo ah oo la yiraahdo palm exercise oo ah calaacashaada inaad sidaan dhahdid cabaar ayaa sidaan leedahay waa kuleynaysaa. Sababtoo kuleyskaas aad kuleynaysid waxaan rabaa in aad indhaha saartid kuleelkaas ayaa loo rabaa inay isha ay taabato. Markaa kuleysid sidaan u saaraysaa kadib markii aad ka qaadid indhahaaga xoog ayaa u furaysaa. Lama rabo tartiib inaad u furtid. Marka aad ku celinaysaa ugu jeer 5 jeer oo kala sameyn kartaa. Sidaan leedahay waa saaraysaa indhaha aad u kala furaysaa. Canug yar haddii aad tahayna oo ay daawanaysid aan isla sameyno sidaan leedahay gacanta waad kuleynaysaa calaacasha saaraysaa waa furaysaa. Habkaasna waa hab jimicsi ahaan ah oo kaa saacida indhaha nasiime hesho haddii uu canuga ama qofka weyn xataa uu sameyn karo xilliga uu shaashada uu daawanayo in ay ka saacido. Habka kale oo muhiimka waxay tahay in aad application ahaan aad ugu xirtid saacado yar marka uu daawado canuga inay isxirto. Cunug yar uu yahay kale oo rabo inuu game ku ciyaaro kale maalintii oo dhan waxaa sameyn kartaa password ayaa u xiri kartaa application-ka waliba qaybta parental guide yiraahdo oo saacado markuu daawado ama da'diis intay tahay ku xiran tahay. Haddii aad rabto inaad ogaatid canugaaga imise saacadood ayaa loo ogol yahay inuu daawado muuqaalkii hore aan ka soo hadalnay muuqaalka hore ayaad fiirsan kartaa. Taas oo kaa saacidaysa canugaaga imise saac ayaa loo ogol yahay. Inta saacadood ee tahay ayaad kaga xiri kartaa. Waa application ayaa jiro parental guide application khaas ah haddii uu jirtane taasna laftirkeeda haddii YouTube taxtaa YouTube-ka bas aad kaga xiri kartaa ama taleefanka oo dhan ama aaladda marka uu canugaaga isticmaalayo ayaa si toos ugu xiri kartaa. Habkaasna waa hab kaa saacidayo in saacada adiga rabtid inuu canugaaga daawado uun ka badin. Sidoo kale canuga badanaa diidmo kale ha u sameyn dhihin xataa waan kaliya bar habka uu sameyn lahaa. Taas ayaa kaa saacidayso in aad ku guuleysatid canugaaga saacadii la raba inuu shaashada daawado habka ugu muhiimsan inuu ku daawado. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaa muuqaalkeena. Haddii aad ka heshay like saar. Sidoo kale haddii aad marka ugu horeyso oo muuqaalkayga daawato subscribe saar si aad u heshid muuqaalo la xiriira daryeelka indhaha. Waxaan idin rajaa caafimaad iyo indho fiican.